kulankan dhex maray gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo dhalinyaradii aqoon-yahanka gobolka Togdheer ayaa diiradda lagu saareeyay wacyigelinta sidii bulshada gobolka Togdheer loogu wacyigelin lahaa qaadashada kaadhadhka codbixiyaasha iyo sidii loo dardargelin lahaa hawlaha xisbiga kulmiye si mar kale uu talada dalka ugu guuleysto waxaana madashan ka soo qayb galay hoggaanka sare xisbiga kulmiye xubno ka mid ah golaha wasiirada siyaasiyiin xildhibaano aqoon-yahan dhalinyaro madax dhaqameed iyo taageerayaal luxdan oo reer kulmiye ah dhalinyaro iyo aqoon-yahanka gobolka Togdheer ayaa iska daba maray sida ay uga go'an tahay inay mar kale talada dalka uu ku guuleysto xisbul xaakimka kulmiye dhalinyarada iyo aqoon-yahanka taladooda fikirkooda aragtidooda soo jeedintooda in gudoomiyaha iyo hoggaanka xisbiga iyo mas'uuliyiinta xukuumadda madashayna la jooga ay dhageystaan oo aynu xog wareysano oo taladu xaggeena ka timaado dhalinyaro ahaan inaynu muujino taageerada iyo awoodda ballaaran ee dhalinyaro ee xisbiga kulmiye ku leeyahay xaggee gobolka Togdheer uu ku leeyahay nolosha anigu intaan garaadsaday ee aan dhalinyaro noqday xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaan ahaa waxa ka mid ahaa gudida fulinta gobolka Togdheer weligayo walla nagama qaadin weligayo warwar kama qabno aan wanka galino xisbiga kulmiye iyo Muuse Biixi Cabdi waxay u tureen xisbiga wadani hadaynu soo dhawayn samayn lahayn wadani lama arkeen maanta waxaynu u cadaynaynaa dadkan bal lama soo iibin reer Burco iyo reer Togdheer waa kuwa halkan fadhiya Soomaaliya waqtigii ay tartamaysay nin qoslabay lahayd laakiin Soomaaliya ninkii way ka tashatay maantana Somaliland way ka tashatay qosol oo mujaahid baa taagan sidoo kale ninkii ninka garab istaagi lahaa ayaa loo baahan yahay mujaahidkeenu ha noolaado mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu leenahay mudane haddaanu nahay gobolka Togdheer guushu gobolka Togdheer way la dhalatay mujaahidiinta madaxweynayaasha aqoon-yahanka gabayaaga suugaanyahanku waa reer gobolka Togdheer dadkana waxay ku qiimeeyaan kartida ee kuma qiimeeyaan aragtida iyo beelnimada waad u qalantaa inaad noqoto hogaamiyaha 2018 ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu ku dooranaynaa Muuse Biixi Cabdi waxqabadka faraha badan ee xukuumadda xisbigiisa ka dhalatay ay samaysay oo aan la dafiri karin waad aragteen waxa waddanka horumar socda waxa wadooyin socda waxa gurmad socda waxa riigag socda waxa dhisme socda waxa airport socda oo Cabdiraxmaan wuxuu joogay baarlamaanka hal shaqo inta qabto halka shaqo waxay ahayd xisbi buu samaystay dawladuna waxay qabatay iyo kulmiye wuxuu qabtayna waa garanaysaan iyaduna haday noqoto lacag la bedelo iskuulo free laga dhigo wadooyin la dhiso waa adduunyada kale kacaan baa lagu magacaaba markuu xisbigu waxa soo kala sameeyay mushahar la laban laaba adduunka kama dhacdo 5% baa la kordhiyaa burco waa hooygii kulmiye waxa weeyaan halkii uu codadka ugu badan waligiiba ka heli jiray iminkana waxaynu leedinka rajaynayaa sidii si ka fiican marwooyin iyo mudanayaal maadaama berri kaarka aynu qaadan weyno iyo qofkii qaadan waayaa inaanu Muuse Biixi soo saari karin inaanu musharaxu jecel yahay mid baarlamaana soo saari karin iyo inaanu mid kala deegaan u jecel yahay midna soo saari karin xubno ku hadlay magacyada garabyada xisbiga kulmiye salaadiin aqoon-yahan qurbajoog haween dhalinyaro ayaa tilmaamay taageerada xisbiga kulmiye uu ku leeyahay gobolka Togdheer iyo sida ay bulshada gobolka uga go'an tahay inay kulmiye doortaan wasiirada wasaaradaha hawlaha guud Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan warfaafinta Cismaan Cabdilaahi Saardiid Cadaani wasiir dawlaha beeraha Cabdiwaaxid Cabdiqaadir wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Kaysar Cabdilaahi afayeenka xisbiga kulmiye Xasan Gaafadhi siyaasi Abdikariin Xaniif iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa iftiimiyay siyaasadda kulmiye uu ku hantiyay bulshada reer Somaliland inta yare orodka ah halkan ka muuqday ee xisbiga wadani halkan ka ororday runtii horta wax weyn oo lagu dhiilaaba ma ahayn hadii jeer reer miiga xogaa yaro halaan kale waa hees badan yahay tobanay halaad buleeyo afar mar badin abu ka dhaafaya hobalay kooro iyo aleen iyo xabu ku xidhaya qalaw laakiin de horweynta diga hor fadhiya de mar buu soo dareeriyaa iyadoo saas ku duba dhacday oo baarqabka iyo boodaantu saa uga sangarayso walka de rag xoog leeyahay iyo kuray iyo kaga heesayaan rag alabkeeda yaqaan hadii ku heesay marka ay markaynu dhaqaajinaynaa xalahan lagu heesayay afarta aleenka iyo waxaan waxba ma aha
saddexda musharax weliba qolada nimanka dee ururdisay wadani waxaynu u baahanahay 3 doollar 3 bilood soo socda loo qabto saddexda musharax xisbiga kulmiye hadaynu nahay waa diyaar baynu nahay waa shirraban yahay waynu challenge garaynaynaa 3 doolood soo saara musharaxiina oo bannaankaas soo dhigo ummaddu ha daawato dabeedna ha kala hadhaan ama warqad yar akhri ama sidii berigii dood Mareykan daawanayo leeyahay television buu halka mid kamarad loogu xidhayo marka su'aalaha lagu badiyaa buu yar aamusay dabeedna debate-kii buu ku yaradka markaas xamuud dabeedna soo tuuraa yar dhaba qof meel kale laga remote garaynayo halkana samaacadii ugu jirtay aan la arkayn marka ama warqad soo qaato ama wuxuu doonaa soo qaado almiida waasac ninkii damalka ahaa ninka damalka dalkan ka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammeeyay harsata ee hormoodka ah halganka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay horta waxaan ka baryaa ilaahay cimrigiisa ha jaraajiye mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo markii ragga muranka galay madmadowga ragga qaar ka galeen meel wax iska yartuseen waa kii hadlay war wuxuu yidhi halgankii intaa ictiraafka helaysa 100 sanadoodna ha qaadatee waxaan ku ogahay maanta mujaahid Muuse Biixi Cabdi Silaayo ma hadal badna nin hadal badan maaha laakiin waxa ogaataan markuu hadlo hadalkiisu meel buu ku qotama Muuse Biixi Cabdi wuu soo sabree taadeer maanta waqtigiisa joogtaay tawaynaad foodka siisaan waxaynu farmaajoynu ku beegaynaa oo dalkan madaxweyne ka noqon doona mujaahidku soo dagaalamay xabadiisa ku jira xisbiga wadani waxa ka soo baxay wax aan laga filaynin oo loo fadhiyin hanjabaad hadidaad fadqalalo ragow kibirka waa lagu kufaa ka hal ogaado oo aan meeshaba oolino meel laba ka soo galay ma baqdin bay ahayd ma hanjabaad bay ahayd ma hadidaad bay ahayd xisbiga wadani muddada u jiray weli maan arag muwaadin reer wadaniya oo mas'uul reer Soomaaliya oo xiriir u jawaabaya waxay ka jawaabaan jawaabta xukuumadda kulmiye ka jawaabtay ka sii jawaabaan iyagu waa saadaal aad iyo aad u wanaagsan waxaanu aad ugu dhiirigelinayaa halkii ay hayeen inay ka hayaan ka sii badiyaan xil gaare maanta ilaa Axmed buu ahaa reer Togdheer buu ahaa maanta nin kala marti inoo ah inaynu halkaa xilkaa iska ururino taasaan idinku sii dhiirigelinaya ujeeddada xafladdan waxa weeye inaynu isfarno in kaarka la qaato oo aanay qof iyo kaarkiisu marna iswaayin oo aynu dhallinyarta iyo haweenka iyo waayeelka intaba sidii aynu ugu baraarujinay inay kaarka qaataan aynu u diyaargarowno gudoomiyaha ahna murashaxa xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa madasha ka jeediyay hadallo ku tacalluqa mabda'a guud ee mideeyay bahweynta xisbiga kulmiye haddaynu kulmiyanahay waxaanu ku midownay waxaanu ku wada shaqaynaynaa waxaanu dalkeenna u leenahay codka siiya kulmiye waxaanu doonaynaa inaynu fulino oo aynu qabanno inagoo kulmiye ah xukuumaddeena iyo kolba ciddii xilka haysaa inaynu nolosha dadkeena kolba kor u qaadno halkay maalintaa joogto meel ka wanaagsan aynu gaarsiino inaynu dalkeeda midayno oo dadkeennu dhammaan noqo dad isu qalbi xaaran oo dalkooda wada dhista iyo inaynu diinteenna ilaashanno inaynu qaranimada Soomaaliland xaqiijino qolooyinkan mucaaridka ah gaar ahaan wadani hal su'aal baan weydiinaya waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sugan dalka Imaaraadka waxay bariyahan aad miidiyaha u marayaan odayga waa sakaraad kana dhacay balaayo dee waa habaartaasi odaygu dalkana waa u soo shaqeeyey intii dowladda ahaana wax badan buu u qabtay waanu diga qabooba oo 7 sano joogay ciisma herdiin shaqaaqooyin waa inma dhicin waana ninkii horreeyay yiri anigu tartay maayo oo odayaana waa iska nasanaya dhalinyaro ay bartartama tawarta aniga dad tartamaya marka odayga waxa u maageysaan ma ilaahu garan maayo sababta ninka inoo baneeyay ee wartartama u maageysa ee waliba habaaraysa mararka qaar waxa horta dadka miidiya wax ku soo qoray miyaanay moral lahayn miyaanay dad islaam ahayn miyaanay dad garanaya ahayn يعني ereyada qaarkood meesha maaragtay qaar qabta maaha umalayn maayo in dadka wax garadka ah ee reer wadani
oo caqli iyo aqoon iyo wadanimo leh ereyada caynkaas ka raaliyihiin u maran maayeen ay qoraan laakiin asoo darro dadka qoraan magacooda wax ku soo qoraan si walbana arrintaas waa arrin u foolxun marka waxaan leeyahay wadani odayga aan wada dhowrano tuwacan buu inoo jeexay